بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ugu horeyn waa idin mahadnaqaya idinka iyo bahda soo diyaarsay darskanba. waa marka labaad cinwaankan su-aal ahaanta loo dhigay ee ah waa kuma aqoon-yahanku. waa su-aal aan fududayn in laga jawaabo, waayo waxay isweydiin kale waxay tahay aqoontu waa maxay. kadib baynu isweydiinaynaa yaa aqoon-yahana. kadib baynu isweydiin doonaa aqoon-yahanka aynu inagu u baahanay waa kuma, kaalintase uu bulshadeena ku leeyahy maxay tahay. su-aasha koowaad ee ah aqoon, alcilm, maxaa cilmiya? waa su-aal aada u qadiima, waa su-aal da-weyn oo aadanuhu muddo aada u badan doodeeda uu ku jiray. sidaa awgeed baa furuucda falsafadda aynu naqaano lacallaha inay tahayba farca ugu culus oo ah farca epistemology. epistemologygu waa almacrifa, waa alcilm. maxaanu ka warramaya maxaa aqoona, sidee aqoon lagu gaadha, bale su-aalo kaba adag oo ah wax ma la aqoonsan karaa ise waynu riyoonaynaa. aadanuhu xaqiiqada ma gaadhi karaa ise wuu ismoodsiiyaa. waa su-aal aada u da-weyn runtii. sida awgeed ayaa falaasafadii hore iyo kutubulfalsafa dhammaantood way ka hadlaan. su-aalna haddii lagu yidhaahdo waa su-aal falsafiya, jawaab falsafiyi ma jirtaba. waayo lacalla waxaa laga yaabaa inta madaaris fikriya ama school of thoughts dunida soo martay mid waliba jawaabbay ka leedahay. bale lacalla inaad is odhan karta mararka qaarkood mala filosof kastaaba ra'yu ka leeyahy. waayo falaasafadu waxay wadaagaan mushkiladda, laakiin xalka ma wadaagaan, jawaabta ma wadaagaan, ee waxay wadaagaan mushkiladda iyo soo bandhigeeda. waana su-aal ilaa hadda dadka wax qoraa weli ay ku foogan yihiin siday uga jawaabi lahaayeen. waxta waxaa laga yaabaa furuucda cilmiga ee baxdigaa rag wax ka qoray oo weli su-aashayna ku taagantay inaad arki doonto. maalan Ernest Mayr, this is biology, the science of living world. living world buuggiisa la yidhaahdo fasal baa ku jira ama chapter uu kaga warramayo su-aashatan. waxaa la mida Ronald Holmes, quantum philosophy, waa quantum buu ka hadlaya, quantum mechanics. chapter baa ku jira buuggiisa uu kaga warramayo mal cilm ama maxaa aqoona. markaynu eegno David Zernick oo ah ustaad culuum insaaniya, social science, buuggiisan akhlaaqiyaat ilcilmi la yidhaahdo, chapter baa ku jira uu kaga warramayo mal cilm. kuwan aan soo qaatay ma aha dadkii hore, waa qarniga 11aad kuwa wax qoray. hadda qarnigii 20aadna maaha, waa qarniga 11aad ayaa weli akademigu isku dayaya su-aasha inuu dib u soo celiyo. walidalik aadanuhu sidiisaba haddii la sifeeyo malaa waxaa la odhan karaa waa albaaxith can ilxaqiiqa, waa raadiyaha ama cidda raadcaysa xaqiiqada inuu gaadho. sawaa ha noqoto ontology ama alxaqiiqa alwujuudiya, jiritaanka, metaphysics, maa waraa abiica, beyond the nature,
aragna maxaa ka dambeeya oo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala yajiritaankiisa iyo wixii ku saabsan ay kaga waramaan ama physics laftiisa bahaato meetaha intay laga tago oo tabiica nature kaynu raadayno oo culumtan science-ka taqaaniin oo dhan ay ku jirto raadada nature iyo xaqaa'iqdiisa inay wax ku ogaato ama tafarac kale falsafiga ay ku saabsan ethics al-akhlaqiyat al-qiyam maxaa khayra maxaa shar maxaa san maxaa xun waa farac kamida furuuc al-falsafa ama se tafarac ku saabsan aesthetics ama al-jamaliyat beauty maxaa quruxa kuwa baadiya وقالنا لو تقانين فنك هي موسيقى هي آرت هي نحت هي سوغامة هي وحنودني صورة بيضاء كوصوران قرح لا يراهدو وحا الفلسفة لباري صورنا لحقائق ذا يكون المامس أي حقيقة رادينتك أي استمالة وكورنا أما علم وكورنا أما معرفة وكورنا أقوام وكورنا ولعل هذين الإسلام كأجمع أركتيها ترى بدن لنظرية المعرفة وحلقيها بين وجود الدولة هي نظرية المعرفة محي المطابقة لا يلاحظون وقولك أما تصورك يعني صوريك أما وارد وافق واقع حقيقة وافق أي علمية هذا سؤال شيء لك جواب سؤال فضوض معها آذانه نهروه قدامه هذه مكانت هذا أقومكم هو أردت إن لك جوابه إنسانكم وحقيقة الرادس سؤال شيء سويتين تلك كده الدول ملا وحويليان سيدي أقول له إليك أما محام مراجع مسادر هل كي أقول له إتتالك الرابعية أما كيف نتعلم هنا إنه مكان الرابعين أقول له إنه مستر نلاغي وصيله نلاغي منهج نلاغي صدح لا أريد في الصوت هو مستر ومرجع وما لا أظن الله كمسلمين هانو حل الرميسي مصدر العلم إنه يهي الكون والوحي يونيفرس كان يكون والله دمانتي هي وحية والله هذا سؤال محي من هو خلق الله أو مفعولاته إلهي وحي وأبوري والسمية برشاديسي ميدنا وحويان وحيي حق الرب كيمي يا أقوام يا رب صادري لما ذا الشيء ومرجع في الشريعة للرميسيين يحي محي أقوام تماشى لقرار عيه وحنا ووصاي آلاف كاللو أديك صدا قلتها بهذه دور كده والحس والعقل الحس والعقل دقا أيام ده يوحنا حسك حواس الله يقانو إيوه مانك أما قراتك أما عقلك وإلى القرآن كوكت المامي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي علوش هو يمكن إنك صوصار يمكن أن محبط قرنين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وحيدية لي أدوات وحبرشة وحوح لغبطة سيداوجد وحكسوا الدليل لوغها له قضية كونية أما الدليل لوغها له وحي يسمى كيف هو معرفة هو علم نورك هذه اللي بدأ الدليل لوغه وينا وخرافة سوين بين القرآن وقت المامية
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كورمض إليه سبحانه وتعالى شركاءكم الذين تدعون من دون الله عندنا عابد لسان إلهي السكلي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إلهي وحلي الدليل كونك ككيرا عركا يدلكا يوحن جرين وحلي دليل قصاصا كان أما ما هي مد وحيية وحق الرب كيم كان لبدا هدا مدنا ويدان بإلهي ليه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وحق لا يسروا الرميسان وكدين يبين بإلهي كلمة يوحنا بمعه sidaa ogeed waxaan leenahay marjaca ama meesha aqoon loogu noqda waa alwaxyu iyo alkown ama kitaab ullahi almaqruu iyo kitaab ullahi almanduur aqoonta aadamuhu uu baadho oo dhami waa abuurkan wax ka midoo la ogaaday siduu u shaqeeyo haddaynu wax ku kordhinana waxaynu isku dayaynaa waxaasi siday u shaqaynayeen inaynu qallidno inaynu ku dayano all technology waa taqliidun liltabiica bay yidhahdaa wax kasta oo scientificoo la ogaadaa waa qaacida ama waa loo ka mida qawaaniinta kownkan uu ku socdo ayaad wax ka soo ogaatay dabeetana isaga baad isku dayaysaa inaad dib u isticmaasho si aad adna waxu samaysan kartid haddaba wasiilada la isugu gudbiyaase muhim maaha wasaa'ilka qaarkood dadkuu macrifo ku raadiyey shareecadu way yidhi faalka iyo sixirka iyo riyooyinka waxa iska aan adilo dhaba ahayn ma aha adilo kownka cilmiga yaalla ama kitaabka cilmiga ku jira wax ka keena haddaba waxaynu leenahay aqoontu hadday kaa tahay aqoon-yahanku waa kuma erayganan af soomaaliga ee aqoon-yahna kii aqoonta lahaa malaa luqaadka wax ku dhigataan erayo badan oo macnayagooda wax u dhexdhexeeyaan baa jira laakiin inagu dhammaanteed aynu ku tarjumno aqoon-yahan matalan qofkani waa academic waa scholar waa learned person waa qof knowledgeable ah waa erayada tirada badan waa intellectual erayada tirada badan lee luqada ingiriisi la sheego intooda badan waxaa laga yaaba inaynu inagu ku fasiro inuu yahay aqoon-yahan mararka qaarkood erayadii intii af soomaaliga la qoray la soo kordhiyey waxaa ka mid ahaa intellectual peopleka waxay dhaha waa indheer garab indheer ayuu garanayaa qofna indhow buu garanayaa midna maxay indheer buu garanayaa waa erayadii markii dambe terminologyga la soo kordhiyey indheer garab iyo aqoon-yahan bini aadam aan aqoon-yahan haynin yuu jiraa I don't believe dad sidaa u tidhaahdo erayga sidaa waasica isaga sheegto ma qof aan aqoon lahayn baa jira ha yaraato hase badnaato ninka reer miyigaa ee geela haysta waa aqoon-yahan geeleed ilaa xad soo maaha waxay yaqaanaa geeliisa sida loo maalo sida loo arooriyo sida loo xaraysto sida loo daajiyo sida yacni wax badan oo idinku aydan suurayn karin oo cilmiyu haya ilaa xag wuxuu bartay geela marka la lisayo haruubka xaggee lagala galaa mahaaneedka mise biskeedka mahaaneedka biskeedka ma taqaana haruubka ninka geela lisaya maka dhanka bidix kaga jiraa haruubka loo dhiibaa hashan bidixdeeda taagan se ka midigteeda taagan baa loo dhiibaa se mid walba waa loo dhiibi karaa maya geljiruhu mid kulu u dhiibaa waanu fiisan garaynaya labada ninba haruubka ma wada qabtaan
geela ma taqaanin meel la yidhaahdo gorofleged halkan yara kuusan hasha adinkeeda gorofleged baa la yidhaahdaa gorofku waa haruubka haruubkay legedaa weeyaan haruubkay tuurtaa ninka geela iyadoo la lisayo ayuu iska dhaqaaqaa markuu doono hadduu dhaqaaqana gorofku kaaga dhufanaya dee goroflegedkiisa goroflegedka waxa loogu bixiyey dee gorofku legdaa idan waxa loo dhiibaa ninka midigtiisu ay dambeedka lisayso ee hashu markay istiraahdo soo dhaqaa haruubku kanuu saaran yahay kala wareegi kara hadduu adinkan ku hayo markay dhaqaaqdaba way ku dhufanaysaa laakiin hadduu adinka kale ku hayo distance baa u dhaxeeya uu dareemi karo hashu inay soo socoto oo gorofkiisa ka duwi karo idan waa cilmi waa aqoon uu bartay hasha haruubka xagga laga galayay idan waa aqoon-yahan laakiin waktigan dambe waxaad moodaa aqoonta dadka badh inay kusoo koobeen intan schooling systemka lagu qaato scholarka kuwan la yidhaahdo maalan ninka waayeelka ee boqolka sano soo jiray ee waayaarabka ee tajribo wax badan kusoo helay miyaan la odhan karin waa aqoon-yahan nololeed nolosha wax badan buu ku ogaa haddaba haddii aynu nidhaahno wuxuu waa terminology ee literally ha u macnayn yacni erayga af ahaan ha isaga macnaynin haddaad tidhaahdo ee waa inuu yeeshaa macno maxay mustalaxa terminologya oo bini aadamka akademigaay ama aqoon-yahanka qorada sheegatay isla garatay waa qof kasta oo aqoontiisu ay ku salaysan tahay labadan masdar ee aynu sheegnay ee imaa waxyiga kitaab wa sunna ama ah kownkaasi qorashadiisa ay ku salaysantahay una maray uruqa cilmiga ee la yaqiinsan yahay ama la rumaysan yahay oo wasiiladu adeegsaday ay tahay ima alxisu wa ima alcaql wasiiladu adeegsadayna ay tahay inuu caqliga isticmaalay ama se inuu isticmaalay maxay xawaasta uu isticmaalay dabeetana can ariiqi almulaaxada watajriba iyo wixii la halmaala observation science maxaa tirahda waa mulaaxadaat observations baa la sameeya daahira muuqata waa la observe kareeya kadib hypothesis baa loo sameeya kadib waa la tajribeeya kadib scientific law ama wax qaanuun nadariyad baa la keena kadibna beberka academiga baa lagu qoraa kadibna falsification test bay martaa marka ama waa la naqdiyaa ama way sugantaa wax sugan oo aragti cilmiya bay noqotaa ama waa la naqdiyaa haddaba aqoon-yahanka aynu rabno inagu waxaan leenahay waa inuu ugu yaraan laba hal haystaa waa inuu leeyahay kayd aqooneed qaabkuu doonaha ku soo helo kayd aqooneed waa inuu qofkani sidaa ka labaadna waxaan leenahay waa inuu xis naqdiya leeyahy critical waa inaanu weel lagu shubay wax ahayne wax naqdin kara waa inuu yahay haddii aqoon-yahanku uu ahaan lahaa weel wax lagu shubay haan la buuxiyey dee cd-yada iyo dvd-yada aqoon-yahan noqon lahaa soomaa si laga buuxiyo waxa kale ama combyutarka ka waxa lagu qoro aqoon-yahan ku noqon laha aqoon-yahankaa rabnaa ee bini aadamka ahi waa inuu noqdaa maxay qof kayd aqooneed leh xis naqdiyaana leh wax naqdin kara wax duri kara waxaanuu sito af soomaaliya waxaynu ohan karnaa wax hufi kara dheh hufidda soo ma taqaaniin waxaan la cunay ee baal kale dhaqankii soomaaliya marka la tumo maxaa la samayn jiray si loo kala saaro buushaha iyo lubbi shayga midhihiisii rasmigee la rabay inta la tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna musafka lagu shubaa dabeetana waa la hufaa waa la haadiyaa aqoon-yahanku markaa waa inu noqdaa qof kayd cilmiyeed leh
mar labaadna wax xufi kara haan la buuxiyey aan ahayne qof wax xufi kara oo wax naqdin kara oo waxaan u xasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa walidalik aqoonyahanku kaydka cilmiyada aan ka rabnaa kow marka inagu dad muslimiina nahay kow waa inuu garanaya akbar xaqiiqa iyo waxa uu waajibay xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu daliil badan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa fi shariica qofka taa garan waaya aqoonyahan qur-aanku uma rumaysnaynayo ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclam kii garanaya wixii nebi maxamedow kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuuna xaq yahay kaman huwa acma ka indhaala miyuu la mid yahay indhuhu waa wasaayishii ugu fiicnaaye maxay cilmiga lagu baranayay cilmi daayo wuxuu leeyahay wasiiladii lagu gaari lahaa buu qur-aanku saanu tilmaamaya kaman huwa acma inamaa yatadakkar ulul albaab idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxay leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoonyahan noqon maayo waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa saasi daraaddeed aqoonyahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyeed xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan ama taa kowniga ee naajaralka ah ilaahay sameeyey ama taa waxyiga uu soo dejiyey xambaarsan xis naqdiya ana leh critical wax naqdin kara wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin wax hubin kara wax xufi kara wax haadin kara ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoonyahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato waanad nolosha dow ku lahayn qiimo ma leh waa ka ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kamahali ilkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad sidii eyguu la mid yahay baa la yidhi eyga waxaa isku mid ah haddaad erido iyo haddaad iska dayso eygu wuu haraariyoodaa labadaba soxankama haraaryada mataqaani carabka markuu laalaadiyaha yidhaa yani xayawaanka kale ee caadada waxaa lagu yaqaanaa markay kulayl dareemaan ama leeriya ama waxay lamaday haraariyoodaan laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan eyguse isagu labada jeerba maxaasaa loogu matalay waxa weeyaan aqoontu de waa inay isbeddel nololeed keentaa aqoontu waa inay suluugga wax ka bedeshaa waa inay dhaqanka wax ka bedeshaa hadday dhaqanka wax ka bedeli weydo aqoontii la ictiraafayay maaha aqoon qiimo samaynaysa maaha waa inay noqotaa aqoon adiga dhaqanka iyo bulshadaad la nooshay dhaqankeedba wax ka bedeli kara haddaba waxaan leenahay aqoonyahan aan doonayna ka muslim ahaan ka umma soomaaliya waa inuu noqdaa qof diinkiisa garanaya aqoonta aadanuhu uu maanta isku hogaamiye kalena wax ka garanaya bulshadiisana hagi kara markaas oo waa maxay aqoonyahanku waa dadka sameeya alcaqli alcaami lilumma aragtida guud ee bulshadu ay rumaysan tahay waa inuu noqdaa aqoonyahanka qofka kawinaya samaynaya waa inuu noqdaa aqoonyahanku qofka ilaaliya ummadda identitygeeda ummad waliba waxay leedahay identity wax lagu garto
waxay ku soocan tahay waa inuu baadisooceeda ilaalin karaya waxay leenahay aqoon-yahanka aan u baahanna waa inuu noqdaa qof hagi kara bulshada ila alkhayr samaha ku hagi kara waa inuu noqdaa haddaba umamka iyo isbeddelka ka dhaca ummad inuu isbeddel ka dhaco waxay yidhaahdaan waxaa sababa kow in la helo cultural revolution waa in ummadda dhaqankeeda la beddelaa dhaqanka la beddelaa waa maxay waa in la hufaa oo dhaqankaasi wixiisa xun waa in la tuuraa wixiisa sanna waa in la sugaa wixii kale fiicanna waa in lagu daraa sidaa awgeed ummadaha isbeddel kuma yimaado haddaan waxay rumaysan yihiin wax laga bedelin qaabkay u dhaqmayaanna wax laga bedelin ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dadku waxa ay ku sugan yihiin maa biqowm baa layidhi allah laa yugayir maa biqowm maa biumma dad waxay ku sugan yihiin isma bedelo ilaahay ma bedelo xataa yugayiruu ilaahay ay bedelaan maxay maa bilanfus garabka iyo caqliga iyo dhaqanka iyo suluuga inay bedelaan mooyaane waxba isma bedelaan sidaa awgeed ilaahay markuu rusul soo diray rusushu waa aqoon-yahanka cidda hogaamisa waayo absolute value aqoonaba iyagu sidaan toos ay rabbigood ugala kulmeen aan wasiilo tajaarib bini aadamba soo marin ee rabbigood toos uga timi bay xambaarsan yihin rusushu waxay sameeyeen iyo ambiyadu waa maxay maa bil anfus bay bedelaan dadku siduu u fakerayo iyo waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqankiisay bedelaan kaas marka la bedelay cultural revolutionku uu dhaco ayaa materialka bini aadamkana wax iska bedelaan markaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaab science ma sidin looma soo dhiibin tiknolojiyad iyo baabka waxaa loo soo dhiibay wax lagu bedelo bini aadamka cuquushiisa iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa wax bedeli kara taa markii la bedelay waxay taasi tilmaamtay waxaan xaq ahayn inaan dadku rumaysan wax kasta inaanu iska rumaysanin aqoontooda wasaaisha ku adeegsanayaan ima alxisu aw ilcaqlu inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosnayn waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafo dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan insaanku inuu wax bartaa inay fiican tahay in la rumaysto in cilmigu qadarin uu yeesho waxani waa thaqaafadii culturekii bini aadamka oo la bedelayo waa muctaqadkii bini aadamka oo la bedelayo wuxuu rumaysnaa qofka bini aadamka ah waa qaabku u dhaqmayo oo la bedelayo taasaa waxay dhashay qarni kadib inay dunida aqoontii taallo dhan intay ururiyaan ay hufaan weliba oo waxaanu cuntamin intay ka tuuraan ay ka dhigaan wax aadanaha wax tara bale saarta saarta miyaa la odhan jiray ninka uga caansan history of science ka warrama encyclopediahan shagta buuga leh qurniyo dhan oo centuries bini aadamka soo maray buu wuxuu astaan uga dhigayaa aqoon-yahano muslima buu leeyahy waa centurygii kontonkii sanaba nin buu ku calaamadiyey ka mid a aqoon-yahanadii muslimiinta soo maray laakiin aqoon-yahanadani goormay samaysmeen waxay samaysmeen cultural revolution markuu dhacay markii ummaddu siday u fakeraysay iyo waxay rumaysnayd wax laga bedelay ayaa waxaa soo baxay materialkii bini aadamku u baahnaana dad raadceeyey oo aqoon wixii greeg u hayay wixii indiya yaallay wixii china yaallay wixii caalamka yaallo dhan intay soo naqliyeen ayay hufeen oo qaybo badan muslimiintu way ka tageen
sanamada iyo sida loo qorqoro iyo muusiqaadkooda iyo wixii la mid waxaasoo dhan way tuureen khuraafaadka wixii ku salaysnay oo dhan way tuureen wixii wax anfacayay ayay tatwiiriyeen way istaycaabeen marka hore way kulmiyeen kadibna way tatwiiriyeen way horumariyeen sidaa ogeed xataa yurub markaynu dib ugu noqono yurub inay technology hesho waxaa ka horeeya inay thaqaafadeedii bedeshay cultural revolution inuu ka dhacay waxaa maqashaan yurub iyadoo laga warramayo casuurtii caqlaaniyiinta ama casru tanwiir enlightenment waxaa la yidhahdaa maqashaan enlightenment period ama renaissance waqtiyaduu bilaabmay in technology la helo waxaa ka horeeyey in la naqdiyo culture-kii ay haysteen naqdi fiican bay ku sameeyeen laakiin mushkiladdu samo iyo khayrba wuu keenay ama khayr iyo sharba wuu keenay naqdigoodii waayo wuxuu waayey marjiciyadii rasmiga ahayd markay kitaabkoodii naqdiyeen diintoodii iyo munxarif ahaydna ay soo bandhigeen inay inxiraaf ugu jiro inay qaldantay inuu bini aadamku wax ku daray inuu kitaabkani ahayn sidii uu alle uga yimi inaanu ahayn taasi waxay sababtay markaa inay diintoodii oo dhan tuuraan ha tuurane laakiin caqliga saliimka wuxuu ahaa inaanay moodin diimahoo dham inuu kitaabkoodan qaldan yahay yurub may dhaafin culture-koodii iyo kaljaradii kale may daraasaynin maalan islaam may daraasaynin authenticity-ga kitaabka rabbulcaalamiin ka yimi qur-aanka may daraasaynin koodii bay ku toobeen koodii way tuureen xisi naqdiyana way la yimaadeen oo waxay haysteen inay naqdiyaan taasaa waxaa ka dhashay inay raacaan asaalibtii muslimiintu tajriibiga ay raacayeen in kiniisadda lagu xoroobo afkaartii kiniisadda in lagu xoroobo aragtiyo badan oo khuraafo ah in lagu xoroobo aqoontii dunida taalla in la soo tarjumo in la tatwiiriyo in la naqdiyo taasu ku bilaabay idan umamku inay isbedelaan waxa bedela umamku waa aqoon-yahanka waxaa umamka bedela waa aqoon-yahanka laakiin waa markuu aqoon-yahan kaydkiisa aqooneed asaxan yahay caqli kritigana uu wato wax naqdin kara u diyaar yahayna inuu wax tawjiihiyo oo wax isbedel uu sameeyo walidaalika ayuha alaxiba waxaa tilda-ya jaamacada ku jirta ama ka baxday dad raba aqoon kayd aqoomeed oo caalamka yaallay kaydka aqoontu cid gaari male horta cid gaari male markaan leeyahay maxaan uga jeedaa waxa weeyaan aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irtigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikhoo beenoo reeriyo ku dhex daray baa jirta oo ah European centric laga dhigay wax walba inuu Yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badan oo Yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheegay ka mid iminkana iyaga naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaa ee dunida la sheegay inay ka mid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan la isu sheegaa inta badani waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nebi aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyey weeyaan laakiin yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama si kalena u tilmaameen xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen umam dhal ayay waxay dhaxal lahaayeen qoraala xadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka hayste ugu weyn dunida nooca ku saabsan si kastaba ha ahaato waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha reer nebi aadam cid walba cid inbay ku dartay
جريك إن بولاي شاينو إن بولاي هندو إن بيلادي حضارة الإسلامية إن آد وين بيلادي حضارة الغربية الجديدة إن بيلادي ولنا آدنه السيدي بوصي كردينية إذا وادحل آدمها كدحية وادحل آدم وحي ودلونا كدحية حينو بهنا مكان دحلك آدمها كدحية إننا كقابل وكو إننا كيد كأبوري كرمه لبا waxay noo baahanay inaynu yeelano aqli wax ku fikra oo dhaxalka aadanuhu ka tagay saafi ma wadaha fihi dakhal saafi ma wadaha wuxuu baahan yahay aqligi shiili laha siiba qaybta art siiba qaybtaas يعني قيبتا scientific هي waxa laga yaabaa in badan oo kamida qayb badan oo kamida in xaqaa'iqda u dhowdi ولذلك lagama yaabo inaad aragtaan wax badan oo ama natural sciences ka kamida ama mathematics ka kamida oo laga warramayo ninkii qoray wixii uu rumaysnaa lagama warramo waayo ما هريو انت بدن waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaaqada cilmiga noocaasi مثلا lagama yaabo مثلا algorithm wal khawarizmi in loo rajay Muhammad al-Khawarizmi baa soo saaray al-Khawarizmi magaciisa ba algorithm kan waa magaciisa laftiisa oo si xun loo isbeeliyay inuu muslim yahay inuu masiixiye ka arkimaysid xisaabta dhexdeeda الجبر markaad dhiganayso waa nin muslima soo saaray laakiin inuu masiixiye inuu muslim yahay aljabrada ka dhaxkimaysi mathematical proof hada shawaacna inuu yahuudi soo saaray inuu hindi soo saaray ka dhaxki karimaysi laakiin aqoomaha bini'aadamku isku gumaystaa ma isku hago waa aqoonta kale ee ku saabsan culture-kooda وهذين كلجر كأو قادنا سيدي فرانسيسكا يوم هاي إنجليزكو شرحا أرجع كلجر كالطور ما كوي هاي أفكار جرمانكا هي ثقافة دي جرمانكا الحضارة كلها بالله هذا قيب كده مادية هي قيب كده ثقافي هذا مركز الأسكودر كالطور بيجي بسكوي هذا لكن مركز تماده فرانسيسكا سيفلاسيون يلا فرانسيسكا ما قام eray noocaas weeyaan marka la yimaado Faransiiska oo Ingiriiskuna ka sii dambalmay civilization ka laba qaybood bay ka dhigaan oo qayb madaniya iyo qayb yani qayb thaqaafiya iyo qayb material الحضاره الماديه هي ثقافه اهلنا markaas qaybta thaqaafiga social sciences ama siyasad ha noqdo ama akhlaaq ha noqdo ama cilmi bulshadu xaddo nooc dooriya wax ka noqdo ama fan ha noqdo ama waxa laaliyo waxa bini aadamka ku saabsan ee natural science ka ahay waa sawiro mu'taqadaadka bini aadamku kala rumaysan yahay tilmaamaya هذو دقاليه هذو سياسيه هذو علم بالشديد دمانتد ولذلك مركز برامج واحد برامج theories اركتيه كلا نوع اركتي الراسماليه اركتي الشيوعيه اركتي الدينيه اركتي فلسفيكالي waxa ka soo jeeda waa madaris school of thoughts kala nooc weeyaan way mu'taqadaadku ku bini aadam bay ku salaysantahay ka waxay u baahanay inaan yeelano xis naqdiya حس قرن كرم ها صوابه ها صوابه ها خطأ ها في عن ولا قارن كرم ها التجربة الصحيحة ها التجربة الصحيحة هاي حلو بهنا مكاس إن الدين تنسي في عن وقرن كرم حلا نمر مركان صوكوبه وردتن أقويها كأن ربنا
وين النقطة قف مصدر كعلمك الصحيحة إما كتاب الله المقروءة أما كتاب الله المنظورة قف كيد كهسته وين النقطة قفك وحنقدين كريكريتك سمين كرا وين النقطة قف ومدى توجيهين كرا وكالجرال ريفوليوشن سمين كرا لكن نبتو حيتاجنتها هنا markuu aqoon-yahankeenu gadaasha ka maro odayaasheenna iyo jiilkaynu rabnay inaynu bedello waxay dhibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leedahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoon-yahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooyaa haddii aanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnay qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo tobanooda intay ku yimaada inaadaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsado hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqogelin karto ama cultureka bulshadu ay leedahay ee xun cultureka san waa inuu baqogeliya waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqogeliya maayo laakiin cultureka liita uu ku baqogelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankan rabnee wax bedelayay maaha sida ogeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shiligu jiro ugu jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday inagu dhaqankeena ka Soomaali ahaan ka umma Soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaarijiya bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliyaynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasadeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan isnaadaa axzaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna sooma kala guureen haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaada xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xag kale ka soo wareegaya waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay maaha inuu qofkani xun yahay anuu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shaksana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon iyo aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inay waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kala sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kana sheego min reer hebel aan iska leh odayadu saasay kubaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa min reer hebela reer hebel waxay ku go-aan buu ku go-aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoonta waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil ulumma
كساد الجميس سلو جميستو وين قدر الله هيا كسلو جميستو وين للتجويعية هذا مدح يرتها كان وين لقاعد أنا قبضتين قال الود قال له بسوري وحمل بسوري كسلو جميستو وين لبتشيا وين لبقجليا ده سيل ويدان بريسك على ذلك شريه وحمل ذلك شريه وكل اللي كيف مايو وعلى عقبتين يا دول المارقة بكو بيرس دولتها شيطان كا ركب قانون كاي حوق اي وحاول مستوى كنت لقلين هيا سيغ الربان وتصورا لكن انا waxaan rabaa inaan xor ahaado meel lagu xoroobana aqliga uu fiican marka koowaad caloosheena ku xorowdeen aqliga ku xorowda waa ka roob marka aqliga ku xorowda waa caloosheena ka xoroobi kartaa waxaan u baahanay marka تحديات خارجية أما challenges كدبدة كإيمانية نكون حروبه challenges كدبدة كإيمانية واجي هره دول بوح وبيسنجروا حروب وقبسنجرين إمك يدبون وصيد القرآن تضي هذا وصعده القرآن تضي محي ويتمر يرتي لكن حاجة كصواب هذا مالك استوت شيء حنون بيفوت كصورة مساعدات سيد قفينين بلشدة تسد عيب بلشدة حطي بربرته quraanjo dhan baad ka soo dhaxbaxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay kal jarali way burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kasta ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-ga noo dhismo ilaa kayna ugu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa laleeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna laynoo sheego waxaan noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dhilli baqalisa dawladda hooska waxay yiraahdaan halaga wasaaradaha noo dhami NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshada noo dhan mactujaarteena ma waxay noo dhan balaayo kala hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hogaamiya waxaan noqonnay dad keenada loo hayo keenada sama taqaaniin aw ka xariga marka lagu xidho keenada la xidho loo faru xidho wala wadaawo dumada xayar gijeena faru xidho lagu taa ma faru xidho ay lagu xidho idan ayuha alahibba waxatin da'yarti akademiga ahayd wax baranaysa jaamacadka joogtay waxaan ka rabaa waxa weeyaan inaad kayda qodeed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaa xis naqdiya yeelan xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataa waxaa awood u yeelanaysaa inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoonyahan hadduu aqoonyahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoonyahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoonyahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoonyahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xun ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa laaliyo waxa bulshada inay horumarto kor u ruqaasato u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu isagu markaa noqdaa qof nadiif
إلهي محو يري ضدك ما سماها فريسا بدون كنا محي سماهم ميسان حال لو قبل أفلا تعقلون ما ضميدا استعمال ما إلهي لي أقولت وين وحبدل سميسان أقولت وين أنا نقنن إن مال دركسن لينجا هذا صلاة سنة تذكر أنت تريد هذا وحيسكت دايا وحكى لك كاله حتى أبدا كأنه هذا تبيه السماء درك كتشل لك صوبان دبا كتشل يوم تعالى سوى حلو كريه إنه شيء ما أدنى وحنا هستان كسرنا قوم كذا يعني وحلا ربا دردن كأنه حتى أن لقى دبا دردن يوم كلا حكومة مرض المقادرين مرض المقادرين حتى ما زي بالمشاكل تقل نوينو تكون يوم ضبطوا بمقاطعة كيسا ومسألة صحيحة يعني والسلوك السيلة إنه بصوت الله إنه أقبل لي إنه القاضي حنو بهنين الحرمة حرمضو ما هب قعد دولة بنانا تحفر دولة حربة من الدولة في بلاي نلقاها ما هذا حرمضو هنا العقل قالوا حرية نولش واحد أدور الربط إلى ثمين كريسو waxaan dani kuugu jirin inaad ka tagi karto walow cidda kale ay buufinayso soo akhrinayso aku soo koobaya aqoon-yahanimo waan isku dayay ku agwar wareego bal waxay sheegaysaa wax ka mid ah inaan tilmaamo وكائن لأنه إنه توج سيدو ضدك أو إثنية توج كأو حمدان السيدي كرا قف قراتي سعقلية نو حرية هي كيد أقومات ناله وحاو شيء أنا يكرم تنولشي سكموات أنت هذا هشام أدون كنا مقعبك قلت لسانية ماموس آخرنا والليبانسان وأنا أنت يا أنبياء وقمن شرتي يدك هرمود كون نقضي كودا دمانتو dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoonyahanka waa waxay sameeyeen inaga waxa ina baylihiyay dadkaynu aqoonyahankaynu daba socday aqoonyahankeeni meel cidlaabu na dhigay ka Soomaali ahaan waxayna qaybiyay ina burburiyay xadka ina gaarsiiyay waa aqoonyahankeeni waayo aqoontu sidaan noqonin iftiinka ahayd bulshada ifinaysa aqoon ku xoogsiyo u bay noqotay ka ugu fiican isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba wax tar lahayn aqoon xorriyad leh oo keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fikraysa adduunkeedna dhisaysa ayuu u baahan صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين